wiilkaygii oo 8 shay baan ku dardaarmaya ihfad qalbaka fi salaat marka tukanaysa salaada ilaal qalbigaaga ilaali wahfad aynaka fi buyut an-nas dadka guryahooda iyo xaafadahooda marka joogtana ishaada ilaali wahfad lisanaka fi majalis an-nas dadku meelaha isugu iimaanaya la fadhiyo marka joogtana carabkaaga ilaali nin yar oo iska hadal badan oo wuxuu doon iska dhahayo ummadda uu carabki maantooda hadalka la kor saaran noqonin wahfad badnaka min hulqumik calooshaada xifdiyo waxa dhuunta u soo maray waxa aad la qayso cunayso calooshaada geeynaysan iska fiiri wax walba iska laqin afar buu sheegay markaas wuxuu ku yiri wadhkur ithnayn wansa ithnayn laba xus waliga xus hilmaam labana iska hilmaan wadhkur ithnayn laba xus udhkur illaha wal maut udhkur illaha wal maut ilaahi xusuusno inaad dhimanaysan xusuusno wansa ithnayn labana iska hilmaan ihsaanaka ila an-nas wanaaga aad dadka u sameynayso iyo wa isaa'atuhum ilayka xumaanta ay ku sameynayaan labadaana iska hilmaan wanaaga dadka aad u sameynayso adigu inaad sheegto waxba kaaga ma baahna ilaahay baan waxba agtiisa u dhumayna Soomaa ilaahay baa ku xibdinay agtiisa ku taala marka waabaan wax ku sameeyay iyo saasaan ku yeelay iyo anagu wanaajiyaha oran man bay noqonaysaa hadaad wixii wanaaga iska sheegsana tawaabkiisi waaba ka buray marka ihsaanaka ila nas wanaaga dadka aad u sameeynaysan iska hilmaan oo sheegin ya ayyuha alladhina aamanu la tubdilu sadaqatukum bil manni wal adha wardadka mu'miniinta oo sadaqadiina ha burinina oo bil manni manna sheegayso aniga saa ku yeelay maaha iyo wal adha dib qofka hadaad tiraado markasta waxaan ku qabtay waaga saasaan ku yeelay waad ogtay hadaad tiraado waad dibaysaa laana ma jecel qof in lagu manna sheeg marka aduhu waa yaani mannigaas weey ha iska burin sadaqada ihsaanka iyo wanaaga aad sameynayso dhan sadaqo ku yiin hal kelimada macruuf oo sameeysa waa sadaqo wanaaga aad qofka u sameynaysa waa sadaqo wadada dariiqa aad ka qaadayso waxa dadka dhibaya dhagaxa iyo qoriga iyo waxa aad wadada ka qaadayso waa sadaqo imaadatul adaa aan dariiqi sadaqa kelimada wanaagsan ee qofka aad u tiraahdo sadaqa weey qofka oo yaani markuu yaani gaadiidka fuulay ama meel uu fuulay aad qofkii garabka qabato haduu waayeel yahay markuu meesha fuulay alaabtiisa aad kor ugu soo qaato sadaqa weey hadaad yaani xoolo aad la baxda aad haysteen sifaadkaas la sadaqaysta wanaagaas ya la sadaqaysta lagu dadaal marka ihsaanaka ila an-nas wanaaga aad dadka u sameynaysa iska hilmaan ilaahay baan waxba ka iloobaynin ka la yaaynin wa isaa'atuhum ilayka xumaanta isaa'atuhum ilayka xumaanta ay kugu sameynayaan iska hilmaan khalad baa lagu sameeyay iska dhaaf xumaan baa lagu sameeyay iska dhaaf waxba ka soo qaad ikhwani wa ahibati fillah qofka mu'minka ah wuxuu qiimo ku yeelanaya wuxuu ilaahay agtiisa aakhirada darajo ku yeelanaya wuxuu adduunyada qiimo ku yeelanaya sifaadka wanaagsan shaacirkii wuxuu yiri bibadlin wa hilmin saada fi qawmihi al-fata wa kawnuka iyyahu alayka yasir qofka dhalinyarada wuxuu dadka madax ugu noqon karaa sayid ku noqon karaa bibadlin inuu wax bixiyo anin deeqsi oo wax bixin badan iyo wa hilmin inuu dulqaad leeyahay ninku labadaas sifo wuxuu ku noqon karaa sayid inuu dadka madax ugu noqon karaa qofku ma aha in la magacaabo la yiraahdo madax baa noota ama jaga loo magacaabo mehe madaxnimadu waa sifaadka qofka ilaahay siiyay mar hadduu labadan sifo leeyahay hilmi dulqaad buu leeyahay wax bixinna waa leeyahay waa deeqsi asaga waa dadka madax oo bibadlin wa hilmin saada fi qawmihi al-fata wax bixin deeqsinimo iyo dulqaad buu ninka dhalinyarada ah madax ugu noqdaa qoomkiisa wa kawnuka iyyahu alayka yasir labada sifo waa laba sifo fudud ee raadid ku dadaal qof la sayid aad noqotid sifaadka wanaagsan aan ku dadaalna wala diinta adaan ku dadaalna on dhageysano aayaadka iyo ahadiista iyo aqwaashi salaf saalix dadkii wanaagsana ee sunnada nabiga boqolkiiba boqol buuxiye ilaahay ka raali noqday hadaan sifaadkooda ku dadaalno on dhageysano waan ku dayanaynaa luqmaan hakiim wiilkiisa markuu la dardaarmay muxuu ku yiri ya bunayya alayka bimujalasati al-ulama wastami' kalam al-hukama
ورويل كيجي وعلماء الله فريسة مركز علماء الله فريسة واستمع كلام الحكماء ذاتك حكمة علمك إلهي سي هذا الكود الدقيسه فإن الله لا يحيي القلب الميت قلبك دنتي أو مدو بعد إلهي كنا ليا بنور العلم علمك نور كيس إلهي كنا ليا كما يحيي الأرض الميتة أرض دمتي أبارت الدشيسي إلهي كنا ليا بوابل المطر روب وين مركو كدو قلك وانولانا يا قلوب تدمتينا بحا إلهي كنا ليا نورك علمك إلهي كنا ليا marka cilmiga aanu ku dadaalno cilmiga aanu qaadano khayrka aan dhageysano khayrka markaan dhageysano nafteennima waxay ka dhaqan yeelanaysaa ka caadiye